تنقلي أبيتي نحريس تنقلي لقى رئيسي أحمد فران شوي فرفورا حتى بريال هلاي بشاشوي فرفورا بيتك عليه وما باحن كارو بيرتي نحريس تنقلي بيرتي نحريس تنقلي لقى رئيسي هلو السلام عليكم خير يا برواق الميرجينيا وفتحي عبسي اسكور ورحمة في عنتين وحنا ذنري ده فرحة فرن أنا فرحة ضيدي أياشدن وضن كيجي مرايكم وحلقة هي سيا hit the road Jack don't you come back no more hit the road Jack don't you come back no more hit the road Jack don't you come back no more hit the road Jack don't you come back no more فرحة فرن ما مقلت شرتين فرحة فرن وهي حركيو يا دماشات بان كوتشنا واحد مودة الله بقول إيو سديتنا عم صدح بقول أو كيلو وقربها نقص عنا سدعنا لو قد دفاي مركلية سدعنا لو قد دفاي الحمد لله رب العالمين السياسة ده عادوا ما هالله لكن I am مركز سياسة ده أرمها سياسة ده نقطة I am a typical political animal سياسة ده دلكن عن دقنها دلك مريكن كا really دلك يجي halkan nolosha idintii badnayd joogay marka really on nolol iyo farxad iyo de wax walba kala kulmay marka this is really my country and waa wadankayga Mareykan waa wadan aan aad iyo aad u jecelahay alxamdulillah rabbil caalamiin 4 sanadood adigu iska dhashan sanadood oo aad iyo aad u muruga badan oo xiriid nageliyay oo adduunkii oo dhan maaragtay ka yaabiyay ayaan soo maray alxamdulillah إلهي finally كيوانا دافي إلهي سبحانه وتعالى سجى قني وقفر الحين كيوانا دافي الحمد لله رب العالمين دور شذا إنه دور شو historic in so many ways and الحمد لله and قبل يوجه رئيسية مدحولك حاجة نقطة ماركتي قبل مذوقة قبل إسكندال ماركتي and Asian يومذو إسكندال and I think taalafteda anigu siyaabo ka duwan dadka kale ayaan u eegayo markaan hadeerto and ka fikiro ninkani waxyaabaha uu sameeyay ninkii iminka tegay and sidoo carabtii de ugu sanduleeyay inay xiriirkii wadamada yuhuudda furaan literally de ma ahayn choice lama siin waa lagu sanduleeyay and sidoo baytul maqdis u bixiyay sidoo xafiiskii Falastiiniinta ee maaragtay invoiga ahaa halkan ay ku lahaayeen Washington DC uu xiray sidii lacagtii yareyd ee maaragtay humanitarian ka hay'adda la siin jiray uu gooyay sidoo wadamadii muslimiinta de markiiba qaar badan albaabada ugu xiray oo uu ka dhigay kooskiisii ugu horeeyay and platformkii ugu horeeyay uu ku cararaba and inuu immigrationka wadamadan South American ka xidho iyo inuu maaragtay and bangareeyo and wadamada muslimiinta ama muslimiinta markaad waxyaabahaas oo dhan eegto de dimuqraadku oo markii hore ahaa dadka maaragtay haday jir iyaga wadanka domestically bay de ajendadoodu badnayd ay eegi jiraan and foreign policy-ga dhankeedana kuwan cunsuriyiinta ah ee republicanska hadday cunsuriyiin noqdeen de dad dhiisana bay ahaan jireen oo waa xisbigii Abraham Lincoln ninkii madowga emancipate gareeyay sii daayay fasaxay and marka waxa weeyaan republicansku dad dhiisana bay ahaan jireen muslimiinta badankood iyo dadka iska conservative ka maaragtay iska xoogaa iska dhaqanka ama diinta ku yara dhigsan haday jeer iyaga ayay dhankooda u badnaayeen laakiin waxay moodaa labadii xisbiina is weydaarteen hadeerto oo maaragtay dimuqraadka ahaayeen kuwii ku kalkaskalaanta iyo dadkii maaragtay xumaaya cunsuriyiinta ahaa founderskooda iyagay u badnaayeen hadeer way isweydaarteen
amarka ilaahay 21st centuryga halkii lagu gaadhayba isweydaar baa dhacay dimuqraatku hada jeer waxay noqdeen dad ka shaqeeya dee blanket buste ay dadkao dhan wada huwiyaan maadaama waddankan yahay waddan every shade in humanity ay degan tahay kalar kasta iyo diin kasta iyo dhaqan kasta oo ka mida bini aadanka ilaahay abuuray adduunka daafihiisa ku kala noole halkan ayay ku sugan yihiin maraykan bay joogaan marka maraykan berigii hore waxa la odhan jiray waa melting pot waa suugo markaad samaynaysa wuxuu dhan aad isku raqaday isku milmaan dee milankaasi markaa caddaankunbaa lagu milmi jiray haddaanad annaga nagu milmin dee naga midmatiidoo kale ahayd laakiin markii dambe dee dhaqanadii kale iyo wadamadii kale iyo dadkii meelaha kala duwan ee adduunka daafihiisa ka kala yimi ay kusoo bateen waxaa loo bedelay arrintaa odhaahda salad bar baynu nahay saladka marka uu keligii yahay caleenta keligii yahay dee usoo maaragtay kusoo dhiiran maysid oo jeclaysan maysid caleenta inaad iska calaashatoon laakiin marka aad sidaa ugu dhex daadiso tamaandho iyo cucumber iyo basal iyo cranberries iyo muxuu ahaa the fruits iyo vegetables kale oo kala duwan aad sidaa ugu dhex daadiso aad xoogaa natsa ku darto aad liin iyo waxyaabo kala duwan sidaa ugu maaragtay iyo in yaroo touch oil ah iyo touch of maaragtay filfil ah iyo waxyaaba waxaasoo inaad isku waxayso miil dhan buu noqonayaa oo markaad kusoo dhiiranayso cunaysid haddana qalbiga iyo jirkaba u wanaagsan marka anigu doorashadan weliba harris inkastaana aanay ahayn markii hore dee first choicekayga ahayn laakiin haddeer markaan u fiirsado maadaama ay gabadh madow tahay maadaama ay weliba very afrocentric tahay maaragtay madownimadeeda aada iyo aada u jecel aada proud uga ah ninka qabaana nin yuhuud ahoo yuhuudda liberalka ah ee maaragtay kasoo horjeeda waxyaabaha ay israel sameynayso ay carabta ku sameynayso particularly falastiiniyiinta uu yahay oo shalay oo aan national public radioga dhegaysanayana laga soo daayay falastiiniyiintii oo dabaaldegaysa oo leh ilaahay baa kii naga kaxeeyey waa nuu hanweynahay Joe Biden administrationkiisa kolleyba anigu sidaan isleeyahay soo celin maayo بيت المقدس and it's too late that ship has sailed نعم embassy كقاعد معي بيت المقدس still waa fair game oo dee maaragtay laakiin dee ninkii hore basically wuu siiyey nimankan embassy-ga kolley laga rari maayo laakiinse wax badan baa isbedelaya infoygii baa la soo celinaya xafiiskii baa la furayaa muxuu ahaa humanitariankii baa haddana dib loogu furayaa settlementkan ay cunayaanee saa u liqayaan ayaa dabadeetana la odhanayaa dee joojiya markaa sibay dhaantaa oo maaragtay at least xataa toonkaa isbedelaya de marka maadaama ay Harris ka timid dad minority-a oo weli social justice iyo cadaalad u dagaalamaya way u nuglaanaysaa maaragtay kiiska Falastiin oo kale xataa haddaanay wax badan qabanin umalayn maa embassy-ga in la raraya haddana ay at least the rhetoric hadalladan adag nacaybkan aan laga qarsanayn falastiiniyiinta gardaradan joogtada ah saralmankan la cunayo ee la qaadanayo intaa waxaasoo dhan dee way iyadiyo dee presidentkuba way ku dhiiranayaan inay arrintaa wax ka qabtaan ninkan madaxweynahayna waa nin very 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 decent ah very kind human being miskiin ah og dee 78 years old waxa weeyaan waqti badan dee geerida waa loo sameeyay laakiin haddana dee qofku marba marka dambaysu sii weynaado dee waxa weeyaan waa inaad leegsigaaga eegtaa iyo adduunka waxaad kaga tegayso oo maaragtay dhaxal baad ka fikiraysaa marka ma aha qof ka fikiraya 8 sannadood aan haysto waa 4 sannadood sideebaan as much good as possible wanaaga ugu badan ee aan samayn karo iyo saameynta ugu badan ee wax bedeli karta ee aan maaragtay ku dhaqaaqi karo ama dhalin karo sideebaan maaragtay ugu taagsadaa oo maaragtay aan uga midho dhaliya waa taa maaragtay focuskiisa iyo goalkiisu marka iyaduna de maadaama ay dumar tahay woman of color haddana tahay haddana maaragtay ninkeeda laftigeedu de marka ay arrimahan yuhuudda noqoto lo odhan maayo waayo markiiba dadka waxaa lagu talaa yuhuuddu necab yahay qofkaasi anti-semit weeye oo kasoo horjeedaa yuhuudda iyadii nin yuhuudaa qaba aad bay dhaqanka yuhuudda iyada lafteeda ugu dhex jirtaa marka it's not going to be easy in maaragtay layska label gareeyo qofka
marka waxyaabo badan baa isbedelaya oo durba farxadi furan kolleyba arrimahan markay noqoto foreign policyga maraykanka waxaan waa wax intee soo jiray focuska waxay saaraan the next 50 years unless wax emergency dhacaan oo kale sida covid-19 oo kale waxa weeyaan focuskoodu siduu isu bedelaa way adag tahay iyo sida madaxweyne keliya uu maaragtay wax ku bedelaa mar keliya waxaase aad aan ula yaabaa oo aan maaragtay aad iga yaabiya inay jiraan soomaali u ooyaya ninkii aada weydeen soomaali isku sheegaya inay muslimiin yihiin nin diirkaaga necab nin duntaada necab nin dadnimadaada necab nin diintaada necab oo haddana aada u ooyeyso oo weliba rag iyo dumar ay leeyihiin nimanka gartayba oo de waxaad odhan kartaa meel shofanis oo dhan yaa strong man oo dulli maaragtay ah oo isla naaguhu maaragtay u haysta naagi hadday horumar gaadho ama naagi hadday maaragtay cod yeelato inay isaga wax ka qaaday gartay waayo isagaa sidaa ahaa ya cunsuri oo dhan iyo dulli jaahilan caqli weyn lahayn oo dhan gartay oo dee iska dhex arka ninkan dulliga ah laakiin xataa dumar ya xataa dhalinyaro ninkaa u hiilinaya marmarka qaarkood markaad weydiiso wayna conspiracy theories waxyaabahan right wingersku ay ku hadlaan ee complete fabricationka beenta laysu geegeeye laysku toltolay ah alternative facts wax la yidhaahdo ayay kuu sheegayaan iyo xataa inuu obama nin xun ahaa iyo inuu kan ahaa iyo inaan waxba u qaban muslimiinta inaan waxba u qaban dadka madowna complete nonsense programadu sameeyey intuba inkastaan qolo keliya de waxu qaban karin dadko dhan bad madaxweynuhu tao program ama maaragtay policy aad soo saartaa waa inuu yahay mid dadka oo dhan dee maaragtay wada kusi u saameynaya waxa keliya specific madowgo kale waxay ahaayeen dee criminal justiceka waxyaaba cadaalad darrada lagu hayo madowga kiisas yararoo daciifa iyo gardarro maalin walba been maaragtay inta lagu qabto dee lagu xukumo oo kiis loogu sameeyo wiilku by the time uu 12 jir 13 jir yahay marka kuwaana waa qofkii ugu badnaaya xataa obama wuxuu ahaa dee maaragtay markii uu wax kala qaban waayey ila criminal justice oo kale iyo immigration reform oo kale markaad samaynaysid you have to have maaragtay boqolka sanad waa inaad at least 60 dhankaaga ay raacsan yihiin labadii sane ugu horreysay markii uu baaskareeyey obama muxuu ahaa caafimaadkiiba waa tii isla markiiba lagala wareegay ila gaaladii oo dhan caddaankii o dhan baa soo kacay oo badankoodii oo muraar dilaaco yidhi oh my god laynaga qaad waddankii sidee baynu nin madow ugu ogolaanay oo qaar xitaa isaga u foodgareeyey baa markii dambe brain wash lagu sameeyo isagii dib uga soo horjeestay marka labadii sanadood uu haystay wuxuu samayn karay uu sameeyey caafimaadkan dadka ugu badana ka faa'iidaystaa waa dadka danyarta dee dadka danyartaana ayaa ugu badan dadka madow iyo dadka minoritieskaba ugu badan oo weliba madowga haday jeer dee because of stress iyo because cadaadiska badan wuxuu keenaa dee stress iyo sonkor iyo high blood pressure iyo waxa xanuunada cholesterol iyo waxa iswato oo dhan which means you qof dadka madow badankooda haday jeer waxa ku badan waxa la yiraahdo pre-existing conditions xanuunadan maaragtay dee qofku la noolaan karo for a long time xataa haddaad shaqo fiican haysto inshoornadu aanay ku yeelaynin criminal justice-kana wuu isku dayay maaragtay cadaaladda inuu wax badan ka bedelo laakiin dacaladaa la qabsaday waa tii loo diiday xabsiyadiibaa xataa waxay u badan maaragtay xabsiyo ay private companies leeyihiin oo lacag ka sameeyaan can you imagine that marka laakiin waa madaxweynihii ugu badnaa ee pardonskii ugu badnaa issue gareeyey criminal justice-kana intii wixii uu maaragtay executive action ku qaban karay uu ku qabtay pardonskii ugu badnaana dee wuu issue gareeyey oo weliba pardonskiisu waxay dee asxaab iyo sida ninkan oo kale iyo dad taajiriina iyo dad maaragtay levelskiisa ma ahaan iyo dad xidhiidh isaga lale waxay u badnaayeen committee dhan baa ka mas-uulahayd inay dadka masaakiinta ee maaragtay kiisaska yarar lagu xidhay ee qaarkood weliba life iskaga xidhnaayeen in la commute gareeyo maaragtay lasoo gaabiyo xadhigooda iyo in maaragtay pardon la siiyo saamaxaad loo fidiyo qofkii ugu badnaaya pardons bixiya isagu ahaa haddana waxaad arkaysaa soomaali iyo muslimiin
ninkaa xagxaganaya muslimiinta waxay ku odhanayaan daroonskii sidii halkii un bay kasii socdeenoo muxuu ahaa waxa weeyaan ninkaasi si xun buu muslimiinta u galay daroonsku of course way sii soconayeen daroonska madaxweynuhu keligii ma joojin karo meeshii terrorist lagu sheegaba gar iyo gardarraba way aadayaan laakiin taa micnaheedu ma aha inuu sii badiyey ama inuu maaragtay dadka si gooniya oo cadaawad leh wuxuu yeelay khudbadiisii ugu horreysay waddanka dibaddiisa ka jeediya waxay ahayd khudbaddii Cairo ka jeediyay yidhi dadka muslimiinta waa walaalaheen dad isku midaba aynu nahay muslimiintu iyo diinta islaamku waxyaabihii wanaagsanaayo humanity usoo bandhigtay oo dhan buu ka hadlay annagaa joognay on the ground Washington dadku siday ku eegayeen siday kula dhaqmayeen everything has changed conspiracy theories waxaa la sameeyey wadamada muslimiinta ay carabta ayo lagu diro Obama because waa nin madow and it's easy markaad nin madow tahay in because dadka badankooda it's a well known fact in dadka ay dhiigooda ku jiraan oo maaragtay dee for a long time of brainwashing and white supremacist ideana la yidhahdo fikirkan white supremacist ninka cadun baa wax bedeli kara waxna dili kara waxna nooleyn kara ilaahay ka sukow sheekada ah qofkaasi waana ku dilaya waana ku nooleynaya ninka cadun baa samayn kara so Obama in many ways never really had a chance marka it really pains me markaan arko dad madow oo og war ninkani waa ninkii ugu horreeyay madow maaragtay waddanka qabsada in many ways lafihiisu xataa u baqayo de anytime baa lagu dili karaa ganskii ugu badnaa ee waddankan la iibsado maalintuu isagu madaxweynenimada qabsaday baa la iibsaday ay is wada hubeeyeen gaaladii naftiisa iyo reerkiisaaba khatar ku jiray haddana he did everything he could everybody knows markuu Obama madaxweynaha ahaa yes anigu kuma there are many things aanu ku agree karaynin laakiin haddana de anigu positionkaa kuma jiro anigu one of the things really wax badan ma aha one of the things aan ku agree garay waxay ahayd you know laga roonayaasha iyo guurkooda iyo waxyaabahaas laakiin isagu chance ba ma haysanba the ship has sailed way dhici lahayd anyway because federal governmentka already xaggaa u janjeeday madaxweynuhu awood badan uu leeyahay markaa ma jirto haddii already nimanka cadcad baa awoodda waddanka haysta nimanka cadcad hadday doonayaan inay futaystaan cid u diidi kartaa ma jirto oo sharciyaystaan marka wuu ku khasbanaa inuu raaco anu one of the things aan ciiliga qaban jiray waxay ahayd dee markuu qof caan ahoo khaniisii soo baxo ayuu casumi jiray hadiyo jeer ama dee tweet u diri jiray waan kasoo horjeeday waxaa laakiin inuu nin dhiisana ahaa nin dhowrsoon ahaa nin miskiina ahaa nin maaragtay ummad u siman tahay cid walbo ay yihiin ahaa shaki kuma jiro inay dad madoowi ay dadkaa cadcadee right wing terroristska ah ee ku neceb dadnimadaada neceb inaynu inagii iyo diintaadaba inaynu inagii usoo raacno ninkii madoobaa ee weliba maaragtay muslimnimada garanayay ee muxuu ahaa ehelka la ah dadka muslimiinta ah ee garanaya micnaha diinta islaamka iyo micnaha maaragtay muslimiintu noloshoodu sida ay tahay iyo maaragtay qofkii dee ku garanayay really qiil kuu sameynayay qiimahaaga garanayay aad ka doorato xaarwalwaal cawlan oo qarmuun oo doofaar u eg oo edab daran oo ku necab oo caddaystay inuu ku necab yahay carabtoo kale waan fahmi karaya because carabtu adduunka waxay arkaan Obama ay ugu nabcaayeen sababtuna waxay ahayd in nin madoowi uu qabsaday the most powerful nation in the world that really destroyed them way destroy garaysay way dishay taasi way dishay carabtii ya marka inaan inaguna u raacno propagandada ay right wingerska iyo ninkani caan buu ka ahaa propagandada iyo beenta iyo meel walbuu ka riday opinion pages in la qoro wadamada carabta oo carabi lagu qoro meel walba laga rido Obama inuu nin xun ahaa iyo inuu maaragtay muslimiinta uu nabcaay inaan muslimiinta waxba u qaban inuu drone programkii speed gareeyay inuu ninkani not only did he speed up the drone program saguna but wuxuu waddan kasta oo muslim wuxuu ku yidhi juuqataa tirahdaan iyo watch waxa kugu dhaca xataa hadalkii laga hadlayay qoraaladii wax laga qorayay xataa iyo inay xataa soo sheegaan in drone attack ka dhacay meelaha qaar ayuu xadiday marka really waan la yaabaa dadka Soomaalida ah ee ninkaa u sacabtumayay ee ninkaa uu durbaanka u tabanayay ee ninkaa u hiilinayay
republicans maanta isugu sheekeynaya republicans baan nahay for what maxaad khaniisiinta kasoo horjeedaa midha give me a break ay wada yihiin khaniisiin what are you talking about ha isugu sheekayna waxaa khaniisiinta iyo waxbaa dabadooda iyo waxooda dadka iskale iyaga iskale adigu baddaa ka bax adiga waxa kuu muhiimka ahi waxa weeyaan ila adigu raaci mayside khaniisna baa lagugu khasbayaa at the end of the day waddankani waa salad bar culture kasta iyo dhaqan kasta every shade in humanity baa jooga waa in dadka si isku mid ah la isugu wadaa you're not adigu any different than anybody else adigu diintaada adaa lagaaga baahan inaad xadidato inaad adkaysato ilaahayna qalbigaagu daalacanaya laakiin wixii nabadgelyadaadu meesha ay ku jirto nabadgelyadaadu iyo meesha ay ku jirto dantaadu iyo meesha ay ku jirto dadnimadaada as a human being lagu arko qof bini aadan oo nool oo damqanaya lagu arko oo dadku ku barbar istaagayaan kula istaagayaan kuu hiilinayaan adiga meeshaas haddana kuugu jirtaa dadkaagana ugu jirtaa waxay u darneed markay soomaali aan waddankaba joogin oo dee yurub iyo soomaaliya jooga trama idin fiican no trama idin fiican shut the hell up baan islaama tiraahdaa marka it's just fascinating to me wallahi markaan u fiirsado soomaalida iyo muslimiinta sidaa u fikirta obama waa run 2 sano ugu horeysay wax badan buu qaban karayay wuxuu aada ugu mashquulay inuu centerka ku socdo oo dadka isu soo dhaweeyo and that was the biggest mistake he made shaki kuma jiro inuu nin miskiina oo decent ah oo dadku u siman yihiin uu ahaa oo sharaf iyo milgale doofaarkani ilaahayna ma garanayn bini aadanna ma garanayn wixiisu waa transactional wax walba eBay haayeen for sale the whole country was for sale ilaahay baa naga soo gaadhay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin hello inta aynaan ilaawin fadlan subscribe gambaleelkana taabo oo weliba raaci comment like and share